فاضل وحكاها اللي يصير معرك فنانين تلا دردار ميسي دردارك هس يبسوا عنا ذو بهاتسن dardaaranka aan fanaaniinta la dardaarmayo waxa weeyaan fanaaniinta kaliya maahan qof walba horta inaga mid oo halkaan fadhiya iyo qof kasta oo inaga maqan Soomaaliyeed khaladka dhacay qof walba ha iska saxo isaga ha israadiyo wixii dhacay inuu wax ku leeyahay haday noqoto hadal uu qof u geystay haday noqoto dhibaato uu cid u geystay haday noqoto dalka wixii u geystay qof walba ha is saxo oo wixii ku khaldan yahay ama ay khalad la tahay asagu ha iska bilaabo anaguna markaas aan kulligeen wada sixi karnaa wixii khaldamay waxaan oranayaa fanaaniinta hal abuur kale ee wax qora ee wax alifah ee hindisaha ilaahay siiyay maskixiinka in ay ku daraan Soomaaliya burburkeedii dhibaatadeedii sida looga soo noqdo inay hal abuurkooda ku daraan sidii looga bixi lahaa dhibaatadii dadkeena iyo dalkeena soo gaartay ayagoo aad iyo aad ugu mahadsan haddii aynaan wada jir wax u qaban mid qoraa ah waa inuu qoraalkiisa ku diyaariyo sida walaashay oo kale iyo walaalkay qoraayaashu badan yihiin qoraaga in lagu diyaariyo wax alla wixii murtiyo loo baahan yahay dal iyo dibadba dagaalka suugaanta isku soo duuba suugaantii iyo qoraalkii iyo kulli waa u baahanahay in ay ku hindisaan ku dadaalaan sidii ummadda Soomaaliyeed u gaarsiin lahaayeen jaran ka dhacnay jaranjarada inaan dib ugu soo noqono jaran ka dhacnay hoos baynu tagnay waxaynu ahayn manihin meel xun bay sheekadeeni gaartay magac bay Soomaali lahayd sharaf bay lahayd qiimi bay lahayd waxaas oo dhan waa inaynu dib u soo celinaa marka waxaan ku codsanayaa suugaanleydu bal inay isu tagaan oo go'aan isla gaaraan oo meel isugu tagaan annaguna supporters baan u nahay waa support gareynayna diyaar baan u nahay meel kasta oo joogno hadalkaaga waxaan ka fahmay qaranka waa loo heesaa heesuhu ma dhamaadaan markastay soo baxaan laakiin dib u heshiisiin wax la yiraahdo waxaan rabaa in aan dhaho suugaanleyda Soomaaliyeed waxaan u baahanahay in aad naga caawisaan maadaama aan rabno in aan dib u heshiisiin dhab ah ka sameeyno ama si aan la kaashano ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto in dalkii dib u heshiisiin dhaba laga sameeyo oo iyaga Soomaali dhexdeeda ay sameystaan ee aan cid kale iyo international iyo meel kale la aadin oo group iyo xaafad iyo degmo loo sameeyo arrintaasina waxay fududeynaysaa in ay Soomaali heshiiso wixii dhacayna ay ka soo kabato waxaa jirta in dadkii dhibkii dhacay aan dadkii maaragtay ayna ka si dhib uga hadlin qof walbana uu xambaarsan yahay dhibaatadii ka soo gaartay dagaalkii sukeeyaha siyaalo badan ay dadka u saameysay marka dadkeenina ma ay baran cilmi nafsiga ahaan dhaqaatiir nagu filanna inooma soo noqon oo cilmi nafsiga dadkii ay u tegi karaan ay kala hadli karaan dhibka ay waxay xambaarsan yihiin qaarkoodna maba aaminsana in ay jirto dhibaato inay hayso iyagoo xambaarsan oo waliba defect garoobay sababta waxaad ka garan kartaa Soomaaliya waxay la ismila adahay waa kalsooni darro dhibkii dhacay darteeda yimid waxay la dhismila adahay oo dawladda loogu dhagan yahay lugaha in doonaysa in iyagu danahooda khaaska raadiyaan oo aan Soomaalinimo rabin oo dawladda hortaagan iyo in dhibaatadii ku dhacday ay ku dabaqayaan in ay dawladda la oo kalsooni loo qaado dawladda in la taageero marka waxaan dhihi lahaa anigu Soomaalinimadii dhabta ahayd si u soo noqoto aynu helno dib u heshiisiin suugaanleyda iyo culumaa u diinkaba dadkii inay ku wacdiyaan ay ku dhiirigeliyaan in laga baxo la iscafiyo cafiskana wuxuu imaan karaa marka qofku uu dhibkii ku dhacay ka hadlo waxa uu ku wato halkaas qulubta ugu jiro waxaa jirto marka qofka bani'aadamka dhibaato haysato oo dhibaatadii uu ku dhacday uusan ka hadlin ama sakii ku u geystay uusan ka shaafin wixii la kala tabanayay aan la isu sheeginin kanina uusan cafinin kan kalena uusan hadlinin oo dhibkii intuu sheegay kan kale uusan alleeyahay geysan yacni diinteenana way ku xun tahay bani'aadanimada way ku xun tahay yacni udun bay ku noqonaysaa udun qofkii halka ugu jirto oo xambaarsan yahay qof walba oo Soomaali ah oo dhibaato soo gaartay cid ayna soo gaarin way yar tahay Soomaali way isdhibtay meel walba joogto marka in la iska daayo wixii dhacayna loo qaato in laga hadlo lana iscafiyo lagana sheekeeyo ayna noqoto culays ka diga qofkan oo tunta uu xambaarsan yahay ay ka baaba'do markii uu qofkii hadlo waxaan imaanaysaa in hore loo socdo yacni waxa kan isku soo celcelinaya dadka oo dib u dhaca keenaya oo aan maalmo dawladda timaadaba ay ku burburayso waa dhibaatada dadka xambaarsan yihiin kii wax laga haystay kii wax laga dilay kii wax laga qaatay kulli waxa la rabaa in xal laga gaaro
oo dowladuna xal ka gaarto shacabkuna ay ka wada shaqeeyaan sidii looga heshiin lahaa waxa kana looga hadli lahaa suugaanleyduna iyo culimo diinkuna culimaduna waa inay nagala shaqeeyaan oo ay dadkii ka wacdiyaan yacni cuqdada qofka halka uu ku haysto iyo kan wax loo geystay iyo kan wax geystayba in mid walba cafis u baahan yahay iyo tooba in laga toobad keeno in laga cafiyo in bini aadanka wax la isku geystay ilaahay waa ka cafinaya markaad gacmaha warto laakiin bini aadanka wuxuu aad u geysatay isaga u baa ka cafin kara sidaan diinta islaamka maqalnay aan ku dhageysanay marka waa in dadkii la hadlo oo la calool baarto oo laga baxo waxa ku jira oo culimada iyo suugaanleyduna ay ka qayb qaataan waxa dadkaas walaalaha kala dhex maray si looga soo fogaado yacni dhibaatada wadankeena haysata ayaa ka badan mid inaga isku geysanay cadow dhanaa wadankeena haysto cid walba hunguriyeynayso balow dhanaa ku dagaalamayso marka inaan wadankeeni aan u soo jeesano waxa naga dhumaayo kalsoonidii wadankeena aan ugu soo jeesan lahayn inaan wax ka qabano marka wadanka soo jeesadiisa waxay keenaysaa markaas inaan dhismo iyo horukac samayno markii aynu ka hadalo dhibaatada iyo dhibka ina soo gaaray oo aan iska shaafina inagu waxaynu isku geysanay waxaan gaaraynaa horumar inaan dhisno dalkeeni marka dhismo muxuu ku imaan karaa wada shaqayn la iscafiyo laga sheekeeyo laga hadlo ninka wax geystay oo nool uu dadkii cafis ka dalbado kii dhintayna dee la cafiyo oo wax geystay kii noolna uu dadkii cafiyo wixii la kala haysan la isu celiyo dowladii iyo nidaamkii iyo waxaa imaanayo cadaalad markaasaas la sameeyo marka qof walba oo Soomaali ah oo messagekaas maqla mas'uuliyad baa saaran isagu ha iska bilaabo war maxaan anigu geystay kii hiilo wax ku dilay kii qosol wax ku dilay marka Soomaalidu waxay tiraahdaa mahmaha baa jirta walaashay ka bartay ee qoys aan qof u waalan qosol kama dhergo yacni macnahaas bal qof walba waxa ka fikiro waxa waaye qofkii wala waxay ka wadaan qofkii yacni ka hadla dhibaatadiisa maadaama psychology u jirin hadduu qofku dhibaatadiisa ka hadla waxaa la dhahayaa waa waalan yahay caadi ma ahan marka yacni qofkii wala haddii lagu qoslo waxa waaye dadkan iyaga dhibaatadoodii ma muuqanayso iyagii qofkaasi qosol ka dhiganayaan waxay u qabaan in iyaga caafimaad qabaan marka waxaa la rabaa qof kasta oo dhibaato soo gaartay waali ma ahan dhibaatada qofka geystay iyo kan loo geystayba waa in laga hadlo haddaan laga hadlin cafis ma imaanayo labada dhinacba marka dhakhaatiirtii maadaama ay nagu yar yihiin waa in aynu isticmaalnaa hadda kusii kabanaa caafimaadkii inta ay kasoo gaarayaan dhakhaatiir badan oo dibadaha inoo joogto wax noo baratay baa jirta oo psychologyga baratay laakiin waxaan isku hayl garaynaynaa qoladan iisheeg suugaanleyda in ay ku tiriyaan kaga hadlaan iyo culimadu in ay wacdi badan sameeyaan annagana intii kalaan qabanayna waana iskaashi hawsha tani qof walbo mas'uuliyadda ku saaran waa inaa kasoo baxday qof kasta oo Soomaaliya laga rabaa in aan ka wada shaqayno arrintaas waana mahadsantihiin kulligiin intay dhageysatay raallina iga ahaada waxaan dad badan baa ila wada waa badanahay walaalaheena u soo istaagaya arrintan meel walba qof kasta oo nagu soo biiro iyo qof kasta oo nala shaqeynayaba waxaa kala soo xiriiri doontaan meesha aad ka dhageysataan informationkaas faado ma sha Allah taala ilaahay khayr ha ka siiyo waa wacyi aad u wanaagsan runtii cilmi nafsiga markay noqoto annaga waxa waaye dadka waa lagu kajamaa waa sida aad tiri marka lagu kajamaayo ama lagu qoslayo aniga kulay luula lay dhahaa uma arko in ay xumaan u sameynayaan maadaama ayna haysan wax ka dabiibaya ayaga ayay ka tahay qoyska dhan iyona wada waalanin sababtoo qofku wajah wareersan tahay maskaxiin qofka waalan dhabtahay maamaadu ku socotay moogta markay wajah wareersan tahay marka waxay leeyihiin maaragtay yaan la wada waalan oo la jah wareerin adinku asiga ku qosla moogtahay dhaqankii waxa way badbaaday ka ahayd laakiin hadda dagaalkii markuu dhacay tii waxay noqotay nabar waxaa la isaga dhiga marka qabiil hebel hadduu maanta wax sheegto in asigii looga dhigo fiito in looga dhigo daciifnimo in looga dhigo waxyaalo badan marka qof walba waxa waay shaqsigii wuxuu diidaa in asiga lagu qoslo qabiilkii wuxuu diidaa in asigii loo arko inuu daciif yahay marka dib u heshiisiinna lama gaari karo ilaa iyo laabta qof walba iyada inta isku noqoto ay soo saarto aniga waxa igu dhacay saan aniga waxaan geystay sidaan geesinimadaas ilaa ay ka timaado kaliya ma aha kan wax loo geystay inuu hadlo
kan wax geystana maalintuu hadlo tan wax geysata ee hadasho tan loo geysta ee hadasho kan loo geysto uu hadlo maalintaas allay leh laabteenu xoroobaysaa maalintaasaan wada heshiisiin dhab ah aan gaari kali doonaa marka walaalayaal walaalaha Soomaaliyeed meel kastood joogtaan haddaad hadeertaana maqashaan iyo haddaad hadhowtina maqlaysaan iyo inta hadda goobta wada fadhidaba aan isku boorino inaan nafteena ka bilowno naftaada waxaad xisaabisaa intaan lagu xisaabin adoo ku xisaabinaya aniga maxaan geystay sida walaasheen ay sheegtay qosolku heelo galaha la yiri haddaad maalin u qosasho xataa ka tooba keen waxaad tiraahdaa arrin saas u dhacday ayaan aniga farxad u arkayay laakiin maalintaas dhibkaas kala ay haysta oo iiga dhigay inay farxad tahay waxaan xasuustaa 7/11 markay dhacday yar Norweji ah iyo aniga oo iskoola u socday asaa shaqo ka baxay uu isii qaaday uu igeynay waxa aad u taabatay asiga Falastiin dadka mudaaharaadaya oo ku farxay 7/11 wuxuu yiri miyayna bini aadan ahayn waay ay sida u yeelayaan markaas waxaan ku iri aan dhanka la ka tuso adigoo maalin kasta lagu gubaayo lagu dilaayo aan aniga ku dilaayo maalintii aniga jabkayga uu dhaco miyaadna qosli lahayn wuxuu ugu yiri waa qosli lahaa dhankaas ka fiiriyaan dhahay marka ha ku ekaysanin bini aadanimada kaliya marka waxaan u baahanahay dhamaanteen inaan ka fiirino dhanka qofka kale istaaji dhanka qofka kaleeto insha Allah taala naftaadana xisaabi taada kaliya ha ku dhaganaan waxa laga yaabaa kan wax ku geystay inuu asigana dhibana ka daran yahay oo wax kala ka yimaadeen dulmi badanna wuu jira waa ognahay inaan qirano waay inaan xaqirno ma aha marka walaalayaal aan nafteena ku boorino culimada iyo maxay haytay suugaanyahankana sidii fariintii walaashay kuma noqonayo marka sheekadana way noo sii soconaysaa videogan halkaas baan ku joojinaynaa ma salaam keeda waa cunay habar dugaag beerkeeda waa cunay habar buubta beerkeeda waa cunay baal dheerta goranya beerkeeda u buka hasiri dawacaas u sheegaa sidii ku cuni lahay keen dawacooy dawac waxay tir sahal way bakayla loo yeero buunka yeeri dhe dabna hala shido bakayla loo yeeri buunka au yeeriyay habar dugaag oo dhan iyo habar xayawaan isugu timid dab oo dheeraa la shiday oo galoolka bil alka mareerta geedaha duurka dhan ay ku jiraan inta ugu adag dab oo hawada galaya la shiday libaax wuxuu yiri dabkan waa in laga boodaa caawa waa boqorkii duurka waa habar dugaag oo dhan iyo xayawaan asaa laga cabsanaa dabkan caawa in laga boodaa anigaana bilaabaya wili libaax waa ka boodi dabkii balow rab dheh rab qoran dheh dibiga banaankaas daaqaayo beerkiisa anigaa cunaya siri aw shabeelaa soo boodi balow aw kiiri rab dheh rab qoran dheh wankaas barida weyn oo banaankaas daaqaayo beerkiisa anigaa cunaya siri waxaa soo baxay aw waraabi waa ka booday balow rab dheh rab qoran dheh weeshaas banaanka daaqaysa beerkeeda anigaa cunaya siri ay goran yaali kalkaado ay ka bood ishaagtii magaceed waxaa ka horeysa danwaco ka boodaa la yiri waxay tiri gabigeena dhinaca u leexda horta dhinacaas u sii leexda markaas anigaa ka booday dadkii kulligooda dhinac markay u leexdeen did dabka dhibaa dhinac martay ila kaba booday markaasay tiri rab dheh rab qoran dheh waxartaas banaanka daaqaysa beerkeeda anigaa cunaya tiri abbay goran yaali markaada waa ka bood marka iyadaa loo dan lahaa mugta ay goran ma boodi kartee markii bawsoo tiri dabka bartamiisay ku fadhiisatay no markaasay tiri goranyo rab dheh rab qoran dheh anigaa ba-aya halay kala boobo waa kuwa timisoo mugta aniga baaya halay kala boobo hadda waxaa waaye Soomaali waxay taagantaa anigaa ba-aya halay kala boobo badayna yaa la dhacaa xoolaheena yaa la dhacaa wax walbaa la dhaco anigaa isku jeedna ka dagaalka inta ka dagaalka kicinta saa waa laga faa'iidaysto haya halay kala boobadiyaan maanta taaganaa marka fanaaniinta culays badan waa saaran yahay haddana waa la dadaalaa faadumooy waxaan usoo joog ahaa reer xamar waxay yiraahdeen cimrigaada dheeraada geel dhalaayas ku tusaa waxaan usoo taagnaa Exfior lama gabdhood oo nin fanaan dhalay oo iridiisa taagan berigii maxkamadaha waay banaanka ay taagnaayeen nin maxkamadaha mees soo maray oo baawur saaran waa hadal ay yireen waa dhaafeen markaas anigoo banaanka soo baxay adeer axmed ay kaalay yireen
باوركا سعود موجود ده نمن كسر محني يرين متقانا هي ما حد جاين معروفتي الشيطان ما باتين أين يرين وين محاي واحد ما يجا الشيطان يقول إسكا أمس إسكا ناف فننسي كستوالو عايا هدني وعودان وشوده لكن يل كذا أنت أماني ساكسي بدل حوري ما قولي أيام كيسة الله ونعرس محاي قال لي نقيل بدل ما قاجان كعب سنيها ننت يروح بدل وقال لك أنت بدل ونرعسن أنت ساء انت سنوات runtii umadeena lahano dhaafo aniga idin la hadlaayo Soomaaliya ilaa Norway shilin ma iga soo bixin Soomaalina ma leeyahay keenay intaas waxa waaye umadeena jaceelkeeda wali dad aan ahayn reer gobolba isku ee dadka keenay laashin isku gobol xataa ma ugu dar laakiin in adiga qurbo inaad tagto lagu keen ee caafimaad dhaawac lagu ku gaaro lagu keeno marka hore ya qurbo inaad ku noolaatid laguma keen ee dhaawac ku gaaro laga badbaadinayo ati dhaawac i gaaray macnaha oo lay badbaadiyay taasi umada waa ugu mahadnaqaa runtii dadaalka ka mid tahay hadduu ilaahay yiraa wadankeena ilaahay hanu toosiyo waa u duceynaynaa umadeena bageeda buu Allah isu mariyo waxaan iri adduunyadan tub dagaal noqotay iyo meel la isku tiblaayo adduunyadan tacabkii la nacay oo tuugsiga lagu faanaayo adduunyadan 15 jirkeeda dagaalka loo tarbinaayo adduunyadan 70 jirkeeda nabadda aan ka talinaynin adduunyadan tafaraaruqa badan oo tawfiiqeeda kala guuray tahluukadeeda mayreenoo toosi allow tiir jaway mudulkiisa marna ma toosaayo tala xumaninkeeda waa tacab khasaara tilmaan waalidin diidayne tahluuka u dambeysay ummadii tawfiiq aan ogoleen tafaraaruq baa u dambeeyay waa tan maanta oon taagno kale tuki caanaha nasiibkiisa waa ugu tagaa haddana tartiib oo ku cawaaya ma lehe tafahaw ku daadshaa tariinkii dowladnimada توقعنا سوماليا تونكي سكوفولني هذا تيركي مدة ما أتكيرينه قبيالك بانا قصوتورتي تقلي إذا قبيا أنت المانتي إذا عداية تبي تاكي لها تصبح أنا كلا قوي وحلبة ما لقوا توري سيدي لو تحيلها ودني جاي يطالع مرة أنا قلت طريق أنتي أو تاك يلون جاح أنتي سيدي لو طولي لها ودني جاي يطالع وما دان كلا تكتي أو طبعا بمن خحوتي وتاعنا شيء توكسدوا هاسو تبتي لسوق كاني لها ودني جاي يطالع بالحوار ومتال رئيس الوزراء ومتال ومد سوماليا يطالع ودني جاي قرن كينا توالي سنو إن لكلا تور الله هو سيدي لو توصلها ودنيا يطالع تبيتاكو ولا ليال استاغيرنو ولا ليال استاكولينو تعب يا توفيق تلذينها هاتي نبدا تير كذا هلا اتكيو نبدا تير كذا هلا اتكيو سوماليا نولاتو